markay madax loqdaan yalla kala lacaa war kalamaanay war ma haysaana waa heesay heestay maxaad ku heestay war abdikuusa waa reestay ka erilanka war go'an ahayn ma markii geel loo heesay baad adigana goray u heestay war dad falan baa tihiin waxna laydinma sheegi karee guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jayte waa heesay waa jabeeney jibiya yeerey iliilaha kalena aroortaan gelaynaa miyuu yidhi war cabdullaw taa hadduu qaado wuxuu ku dari lahaa adduunyada markuu ilaahay dhise aadmiga simee ninna asaagii inuu addoonsada uma abuurine war guddoomiye cali jayte ma wuxuu yidhi sharwadaha shacbiga dhiba anigoo shabeelehe shifa iigu jiifsada aryaadhaha xildhibaan sambaloolshe oo furunta dagaalka guddoomiye cali jayte kula jira tayamugi dagaalku bilowdana waa heesay war cabdullaw sambaloolsho heesay waa la yaabaa wuxuu yidhi war mawlid waa dhammaaday dagaalka hala galo hees ah miyuu qaaday aryaadhaha laydinkama warrami karee sambaloolshe wuxuu ku heesay lacasiya liraga markay madax loqdaan yalla kala lacaa war horaaba axmed madoobe ugu maahmaahay af ama sambaloolshe ha ku heesa ama looy ha ku daaqdo warnamiya weli kaalay alijayte nouska heesi shabaabow labaadeena seefood waatii saawir noqotaa war anigu heesaha guddoomiye cali jayte waxaan u jeclaa markuu lahaa al-shabaabka madaxyada iga soo ururiya aan idinka iibshe war dad waalan baa tihiin waxna laydinma sheegi karee heesaad ku rafateenna cali jayte ma qaadine guddoomiyuhu wuxuu heesta ka bilaabay boholyow daraadda banka geeriyaadiyo buuraha libaaxa leh ka hayaantay beeshii baqayadu ku nooshahay baqdin looga kala tegey u bareeray keligay waxa hawsha iga badan igu beeray anigaba balawado shabaab iyo baabi'inta shacabke aryaadhaha guddoomiye cali jayte balaayadow hiiraan kula diriraayay minuu banka geeriyaad ka raadiyey anna waxaan dhihi lahay balaayaa beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsaada balaayaa beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsaada war cabdullaw beledweyne balaayo waa ka xorowday beyd ay ku jiri karaanna kuma yaallo war beledweyne baraga walhube galbeedka ay ka warhaaya war macawisley galbeedka beledweyne ka soo jeeda biixii oo la dardaarmay wuxuu yidhi dagaalkaad u socotaanu kii bariga kama yara waana ka daran yahayoo bahallagalaan buu noqday deegaanku marka guntiga dhiil isaga dhiguu yidhi bilaayka haysata abowmaynka baabirtaalaan yeewa eray war guddoomiye cali jayte markuu heestaa qaaday wuxuu yidhi abwaanada soomaaliyeed waa inay soo dhammaystiraan war dagaalka galamiyuu leeyahay inta haanta qabada qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay qalabka waan sidaynaaye kay qaloola tahayo waynoo qori afkii ka daray guddoomiyaha war kalamaanay war ma haydiine masaajid cali guduud weli waa la isku har fadhiyaa wah salaadanta isku gobad u haysanta war axmed mayle makaraan cali jayte ma iska baraajayn waaye war xildhibaan jenaraal xaadoole wuxuu yidhi nin kasta shabaab wuxuu ka furto asagaa iska leh hadday qori tahay hadday baabuur tahay hadday lacag tahay hadday bastoolo tahay iyo hadday bumba tahayba war dumarkay qabaanna maxaa laga yidhi war guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe mayre makaraanba wuxuu yidhi ninkii shabaab soo dila iyo kii meelay joogaan soo sheegaba waan abaal marinaynaa abaalmarinta guddoomiyahana nambarkow anaa ku guulaysan doono hadda sii sheegayo meelay joogaane shabaab waxaan ku huba xarar dheere ceelbuur iyo ceel dheer haddii laga soo waayana abaalmarin iska daaya anaa dembiila eebow anaa kaaga dhawo guddoomiyaha waxaa uu sheegaa xarlugoo lahalahoo shabaab ahaa joogo oo hiinday iyo aayi iyo aawow dhib ku haayo war hankoolow cabdikuusaaba kaa mudano amiirada xarunlugoola joogo magacyadoodii tiriye wargooyin abaalmarinta anigaa idinka mudano waxaan ogahay gobol dhan oo awoodla gubka ay keligood ka taliyaan waana jubbada dhexe warnimiya warka kiidii mayba iinlimaade abtiyow yirka aragaasoo ma aragaw laakiin hob abaalmarin la dhiibow tijeegloo ka jiran weyjiida deganyin buulfulee deganyin farhaanya deganyin kurtun waaree deganyin walaay ku sii hooseena sii deganyiina
malna si abaalmarinta subaan sheego hayne war anigu gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe waxaan ka baqayaa in Nigeria laga soo waco ee la yiraahdo al-shabaab oo ka xaraam la baxay baanu haynaa nasi abaalmarinta war Boko Haramta Nigeria iyo kuwa Mozambique ka dagaalamaba shabaab baa lacagta ay shacabka Soomaaliyeed baada uga qaadaan u geeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baana sheegay ISIS lika daray war dad faranaatihiin anigu masaajid cali guduudan idin sheegay nimankii godad ay ka qoteen la yiri waliba waxa la yiri dadkii deegaanka caruurtoodii ay godadka la galeen si aan loo duqeynin dadka looga naxo war sidaas duqeyntu kuma joogsana waxa la yiri nimankii ayaga kala shikiyay sababtoo 10 meel isugu yimaadaba cirka looga soo dhaca baabuurtay soo raraan gantaal baa cirka uga yimaada marka nisiya ma salaad baa ka dhax shaqaystay baa la yiri war marka ay sirdoonka Soomaalidu inuu ku dhex jira ka shakinayaan kuwa Yurub iyo Mareykanka yimidba waa ku dhex jiraan ama kan Soomaalida kaliya ay diidayaan war wax leeyma sheegi kare masaajid cali guduud saacadaha soo socda waa lagu kala baxayaa la yiri war deegaanka xawaalay waxa la yiri caasi lagu soo cabeeyay alaabtii kullaytana lagu waday meel dad badan ay joogaan ayaa cirka looga soo dhacay hadda 3 jeer buu sii qarxay baa la yiri war ma salaado waayahan loo bixiyay taliye shib waxa uu yiri la yiri amniga muqdisho banaankan ka sugaya war ninku soo duulay gurigaaga laguma suga waa ka hortageynaa miyuu yiri aryaadahan nisa iyo xanteera maad iska dhaaftiin godka jilcow idinka ma dheere war jilcow muxuudin war baa xukuma caafimaadkiisuna hadda waa fiican yahay haye ma gihiraw miya aryaadaha kala maanay war ma haysiin Dr. Xabaab waa kii xanuunsaday looma hee kala herin wuxuuna yiri dareenka dadkayga mugaan arkay waa caafimaad war Cabdullaah Dr. Xabaab hadda waxa loo magacaabay la taliyaha wasaaradda caafimaadka arrimaha dhimirka aryaa warkayga dhex gelin Dr. Xabaab waxa uu mahad celiyay wasiirka caafimaadka Cali Xaaji Aadan gudoomiyaha gobolka Banaadir Madaale oo gurigiisana ku booqday xafiiskiisana lacag ku gudoonsiiyay Hormuud Salaam Foundation agaasimaha isbitaalka kalkaal Dr. Saleebaan iyo wasiirka qorsheynta beena ee uu yiri mar kasta waa i garab taagnay iyo qaar kale oo badan anigu saaxiibada Dr. Xabaab ma tiri kare war xitaa madaxweyne Xasan Sheekh hadda ka hor wuxuu yiri Dr. Xabaab waa dhakhtar iskiis ugu istaagay inuu bulshada dan guud ugu adeego warniyow Dr. Xabaab masaakiin daaweeyahay danyarta gargaaray daruufta jirto ka shaqeeyay hatta hadii darajilanka dari wadaay dadaala irfadi ana war Dr. Xabaab dadka hadda jooga waxay ku barteen asagoo dhimirka daaweeye labadii kun dadkii shuban biyoodku ku dhacay cid kaliya u gurman jirta waxay ahayd asaga barigaasna madaxweyne Cabdiqaasim baa xaruntiisa booqday asagoo faleembooyinka dhamaaday oo ag tuuran aad buura moodo waxa kale loo geey jiray dadka ayuu qaniinaan raabiyadu ku dhacdo wuxuuna barigaas Dr. Xabaab sheegay raabiyadu inay ka dhalato qaniinada eeyaha tabacadeeyaha daanyeerada iyo dawcooyinka iyo qaar kale oo loobay war Dr. Xabaab haaladiis inta ma ku koobo karo eedan halgami war Dr. Xabaab xarumaha caafimaad ee dadka dhimirka lagu daaweeyo 10 gobol oo ka furay war idinka war ku daalin xalay u dambeysay magaalada Muqdisho waxa lagu qabtay xaflad loogu magac daray mahasani Dr. Xabaab waxaana lagu sagootinayay doctorka mar dhow dibadda xaalad caafimaad u aadayo war cali jeeb ku jiro ka hadlay xafladda lagu sagootinayay Dr. Xabaab wuxuu yiri Turkiga marka tagta nabad iyo nolol baa kugu soo dhaweynaysa kadibna doctorku wuxuu ugu jawaabay aaga waraan nabad iyo nolol kama tirsani soo dhaweyna kama rabo war bishaara Allah ka cafiyay Dr. Xabaab aga ma dhihin ama ka go'ay bawas ku yiri ariga cali jeeb ku jira haday teleefanadii ka qaba waayeen xataa wali nabad iyo nolol uu rabaa war waxaad barato waa baaskaas oo lama oran war meeshaad ku qoydaa lagu qalalsadaana waa la yiri war majaabka ku qoyay alaayadan waxa hore loo yiri wax teegay la ma tiigsade timaadada la toosiya wax teegay la ma tiigsade timaadada la toosiya war ma haysiine maxaas waxa ka dhacaya la yiri shir culus waxaana shirka looga hadlayaa dagaalka shabaab ee dalka dhan gaar ahaan Hiiraan si weyn uga socda askari dawladda iyo shacab dagaalka shirkan kuna ma dhayan he aniga horta waa shakiyay abwaan guura markuu heestan sameeyay in aakhirka shabaab kacdoon ay askar dawlad iyo shacab iskaashahayan lagu soo afjari doono ma ogaay war heesta dagaalka shirkan ku nahay 10 sano ka hor ay ahayd war ma haysiina deegaanka qaayib ee gobolka Galguduud ciidanka iyo shacabka deegaanku waa la wareegeen warankoolo waa horanda dhaysa waa la wareegay goormaad ka tagteen wadhi saqshuruuf laan ku sheegay qaayib kuma sheegina waxa la yiri shabaab markay qaayib ka sii baxayeen ceelashii iyo antoonooyinkii isgaarsiinta dab bay qabadsiiyeen war masaajid cali guduud miyay aadeen war deegaano badan
oo hadda faaruqa oo shabaab masaajid cali guduud ka aaday in laga faa'iidaystay u baahan yihiin war dadka qaar wadnahay laayihiinoo calanka madoobabanaya markay arkaan keliyay ka baqaan war soomaalidu markii calanka madow lagu cabsii jiray waa soo dhaaftay war ma haysiina madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani wuxuu yidhi dagaalka shabaab ee dalka ka socda waa ka qayb qaadanaynaa hadda miyuu ka qayb qaadana war hore ugu jirayo waa sii kordhinaynaa waaye war maamul goboleedyada waxaa la yidhi mar kalaa shir loogu wacay oo isugu imanayaan xaaladda shidaalka iyo amnigaana laga wada hadlayaa baa la yidhi shidaalka miyaa shabaab laga waardiyeyna maya waa la kala waardiyeysanayaa war ma haysiina gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu bilaabay magacaabista gudoomiyaasha degmooyinka qalinkii ugu horreeyeyna wuxuu gudoomiyaha degmada kaxda ugu magacaabay cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan gudoomiyihii xamar jajabna cirka uu fiiriyey war kuwa badanoo waxba kala ogeyn dad wax ogin lagu bedelo way tahay war calaa kulli xaal aniga waxaa ila quma anaa u taageersan yahay inaan lagu magacaabo maamulada degmooyinka laakiin lagu magacaabo muxuu qaban karaa warkiinu waa ugu batay ma naga xirtaan war meeqaa daldalmaysa adugu oo yaa kaa war badnaay horta yaabyaaba naawey war axmed dheere waa kii shalay xamanaya raggii maqnaaye maanta xagga u aaday war kalamaanay xantiinnii shalay toole xaafadan ka maqlaayoo dulmi baad xararteene hal qof oo xusul dheeri sooma xaadirin maanta midkiinnii ku xabeebtay ma cabdulluusan xisaabin mise waa xaqirayay asagood xusulkiisa xaskul caaradii mooda miyaan xaynta la joogin